dibadbaxani oo ahaa mid looga soo horjeeday amni darrada ka jirta dalkani Koonfur Afrika ayaa waxaa soo qaban qaabiyay xisbiga talada haya ee African National Congress ANC waxaana ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Cape Town ee dalkani Koonfur Afrika. Banaanbaxayaasha ayaa waxa ay wateen boorar ay ku qoran yihiin Afrika waa mid iyo erayo kale oo looga soo horjeedo isarnacaybka iyo waliba waxyeeleynta dadka madowga ah ee ku dhaqan dalkani Koonfur Afrika. dibadbaxayaashani ayaa soo codeer kadib isugu soo ururay iridda hore aqalka baarlamaanka dalka waxaana waraaqihii cabashada ahaa lagu wareejiyay mas'uul ka socday aqalka baarlamaanka dalka Koonfur Afrika Cabdi Axmed iyo Cabdiraxmaan Seero oo u matalayay dhanka Soomaalida ayaa TV-ga Universal uga warbixiyay waxyaabihii uu ku saabsanaa banaanbaxani. Mudaaraadkan maanta ama socodkan wuxuu ku saabsanaa dhowr qodob oo ay ka mid tahay barnaamijka isticmaalka mudaaraadka waxa kale oo ugu weynaa iyadana dilkan booliiska bariyahan soo kordhay waxa kale oo iyadana qayb ka ah dilka Soomaalida loo geysto iyo dadka kale ajaanibta ah wadanka yimaada iyadana qayb weyn bay ka ahayd marka arrimahaas oo dhan oo la isku daray baa waxa laga cabanayay in baarlamaanka la geeyo cabasho qoraal cabasho memorandum oo cabasho ah waxaana qaabilaya oo lagu talagalay qorsho sidoo hadda aan sugaynaa baarlamaanka hadda hortaaganahay. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Shirka mudaaraadka maanta dhacay wuxuu ku saabsan yahay ka hortag dhibaatooyinka lagu hayo dadka soo galootiga waxaana arrintan gacan weyn naga siisay xisbiga ANC ee talada wadanka haya. Cabashooyinka dabcan waa qoran yihiin laakiin waxa ka mid ah dhibaatooyinka dilalka lagu hayo dadka soo galootiga Soomaalida, Itoobiyaanka, Congolese, Nigerianka ka mid yihiin dhibaatooyinka loo geysta waxaa ka mid ah in la dardar geliyay isdhaxgalka dadka bulshada dadka soo galootiga ee South Africaanka inay isdhaxgalaan waxa kale oo ka mid ah in ka hortagga waxa loo yaqaan xenophobia in si toos looga hortaga. halkan maanta waxaan u joognaa oo mudaaraadka arkaysaan aan kaga qayb qaadanaynaa annagoo ah dowladda Soomaalida ee Western Cape dhibaato ka jirta gobolka Western Cape taasoo ah booliiska wadankan oo in badan la laayay iyo dhibaatooyin badan annaga haddii aan nahay qaxootiga Soomaalida khaasatan foreign nationalka gobolkan khaasatan Soomaalida dhibaatooyin badan oo haysto. This is Afrophobic because if it's xenophobic why don't we attack some of these white people that stay in the Western countries but they've got land here in Cape Town? We don't attack them. Why do we attack our own brothers? So this is a view that I think must be expressed everywhere, that we must not discriminate. si kastaba ha ahaatee banaanbaxani ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli ku dhawaad 20 xubnood oo ka tirsan ciidamada booliiska dalka lagu dilay dalkani Koonfur Afrika. Xasan Kaafi Maxamed Shire, telefishinka caalamiga Universal, baarlamaanka dalka Koonfur Afrika, magaalada Cape Town.